الله الرحمن الرحيم كلمة دينن وحين كسو قادنينا دعاء النبي إبراهيم وكدعايستي عليه السلام دعاء سوحي هاد وتعلي لسان صدق في الآخرين إلهيو ومد دحديدا وناق يا خير يو هذا الهين وناكسن إيدك waxaa jira dad badan oo ummadda ku dhex nool oo marka la soo hadal qaado ama la xasuusto khayr iyo wanaag qofku ku dhaqaaqayo ama qofka dareenkiisu isbedelayo aad qiiro dareemayso dad fara badan baa adduunka ku nool oo markaad aragto naxdin iyo warwar iyo dhibaato iyo aad ka qaadayso oo aad ka baqanayso nabi ibraahim calayhi salaam wuxuu leeyahay ilaahay ummadda dhexdeeda mid markaa dhinto la xasuusto oo loo soo duceeyo oo wanaag lagaga sheekeeyo oo aan laga nixin ilaahay uga dhig qof kastoo muslima waxaa loo baahan yahay inuu noqdo naafican qof waxtar leh si loo xasuusto imisaa dhintay adduunkan ka tegey oo maanta aanad ilaawi karin oo markaad xasuusato ood ilaahay u baryaso inuu ilaahay jannatul firdaws al-a'la inuu geeyo adduunyo aakhirana wuxuu ka tegey barakeeyo imisaad xasuusanaysaa qaar markaad xasuusato aad habaar gaadhaysa ama aad odhanaysaa dad xun bay haayeen dad liitay haayeen dad ummadda dhibay haayeen marka waxaa loo baahan yahay sidii nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam adduunkan qofku markuu dhinto camalkiisa wanaagsan iyo wixii uu ka tegey raad wanaagsan ama awlaad ama camal ayuunbaa soo hadhay sidaa awgeed waa inaad ka tagto wax wanaagsanoo lagugu xasuusto sida cilmi awlaad aad tarbiyeyso ood dhasho kuu soo duceeya عمل وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته